taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Ibrahim Sheekh Muxyidiin gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Kaashaan Sare Xasan Cali Ruute sanad rafcadi wasiirka hore amniga ahna la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur saraakiil ka tirsan ciidamada wacyigelinta hafayeenka culimada Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Cabdiqaadir Somo ayaa maanta booqday xarumaha ciidamada geesiyada ee ku sugan deegaanka Alkowthar waxaana koobta lagu guddoonsiiyay ciidamada 6 neef oo geel ah oo culimada Ahlusunna wal Jamaaca ugu tala galeen ciidamada xoogga kuwaas oo ku kala sugan Alkowthar Ceelal Axmed iyo Darnimca ciidamadaas oo u taagan difaaca dalka dadka iyo diinta waxaana geelaas wakiil uga ahaa culimada Ahlusunna wal Jamaaca Sheekh Somo waxaana ka gudoomiyay saraakiisha xoogga araba wax yar oo ka qayb qaadasho ah oo Ahlusunna wal Jamaaca ka qayb qaadanayaan oo gaar ahaan saaxiibkay Cabdiqaadir Xuseen Baalin Marshaale laba naf oo geel ah oo maanta hadda hortiida taagan inaad sanad rafcadii ku wareejiso taliyaha aan ka codsanaya oo ku wareeji sidoo kale tood adigoo wakiil ah waa in laba dad ka sugnaaday Ali Axmed laba naf oo geel aad geysid daar nicmana laba naf oo geel geysid Ahlusunna bixinaya labadan hada lagu dhibaya Ahlusunna waxay nagu soo booqatay furumaha dagaalka ilaa iyo maalinkaad ogeedeen ilaa hadda intuu ka dhaxlana kama aysan bixin wacyigelinta iyo taakulaynta ciidanka haddana maanta insha Allah hadii la yiraahdo waxay idin keeneen laba neef oo geela aniga oo ka gudoomay oo ka tirsan senator dawlad goboleedka Hirshabeelle laba kalena waxa ayuuna ay geeyeen Daaru Nicmo laba kalena waxay geynayaan Ali Axmed inta kalena waa ay soo daba socotaa anaana ka wakiila labadaas waa maadsantiin marka ugu horeysa waxaan magaciina ugu mahad celinayaa Ahlusunna culimada Ahlusunna wal Jamaaca oo runtii aan ognahay dalkan caqiidada runta ah ee maanta aan aaminsannahay oo aan mataqaanaa aan taageerayno oo dalkeena aan ku dhalannay ee aan ku dhaqannay magacooda ayaa waxaan kula wareejinaa ninka la yiraahdo taliya Mubaarak ayaan ku wareejinayaa xoolahaas Mubaarak aad u maadsantiin waxaan ugu labadii neef oo geel waatana waana markii ugu horeysa markii ugu dambeysana ma noqon doonto waxa koobta si wada jira uga hadlay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Kaashaan Sare Xasan Cali Ruute sanad rafcadi iyo wasiirka hore amniga ahna la taliyaha madaxweynaha Cabdullaahi Maxamed Nuur rajo weyn laga qabaa in aad dalkaani ilaalisaan qarankiisa oo aad ka ilaalisaan cadawga ku soo duulo ee khawaarijta ah ee adduunyada iska soo kaashaday kuweena wax magaratada hayna horu watay masaajidi duminaya dadka muslimiinta ahna dilay ilaalo qaran sida rajada la kaga qaba iyo sida hadda u joogtaan furunta dagaalka way iswaafaqsan tahay macnaha waxa loo wada yimid marka oo xamar looga soo tagay oo furumaha meesha ay joogtaan kugu imaaday waa in garabkiina la istaagaa oo la idin sheegaa inaad dagaal xaqa oo diin ah aad ku jirtaan runtii magaca iyo shaqada heesaana waa isleeyihiin aad iyo aad arintaas ugu mahadsantihiin waxaan raalli ka nahay oo dadkii Soomaaliyeed raalli ka yihiin sidaa u shaqeynaysaan raalliya laga yahay adduunna waa ku dalacaysaan aakhirana jannada ku galeysaan hadduu Ilaahay yiraahdo adduunyada waa ku dalacaysaan aakhirana jannada ku galeysaan aad muujiseen geesinimo sida taliye shuuta sheegay waxaad muujiseen wax shacabka Soomaaliyeed ay raalli ka yihiin ay ku qanacsan yihiin 100% waxa xaqiiqo ah in adduunka intaad ku nooshihiin sharaf ku noolaa doontaan adinkoo shacabkiina dhexdiina ku sharfan waajibaadkii aad u dhaarateen ee sida halku dhigiina ka muuqataba aad u taagneedeen oo qoraxdana u taagneedeen dhaxanta iyo roobkuna idinku dhacay adinkoo gudanaya waxaan aaminsanahay inaad mustaqbalka dhow ku noolaan doontaan Soomaaliya oo khawaarij la'aan ah Soomaaliya oo cabsi la'aan ah meel allaale meesha shacabka Soomaaliyeed idinku arkaan idin istaagaan qofkii iska soo dhiiba oo ka soo baxa safka khawaarijta oo qeera in la qalday kana tanaasulo aragtidii uu ku dagaalamayo dadka Soomaaliyeed ku dhibaateynay in la dhaqan celiyo waxay heli doonaan fursado wanaagsan oo lagu dhaqan celiyo dadkoogana dib loogu celiyo wili ma aragteen canug la leeyahay amiir hebel dhalay oo wiilkiis iyo isqarxiye lama arag haddii wanaag la rabaan carruurtooda may ka bilaabaan waa ogyihiin carruurta inay qaldayaan wax ku sheegan lama arko
carruurtooda iyo ayaguba markaad ka aragtaan tiifiyada waa dad burbuuran oo naaxnaaxsan oo ku naaxay dhiiggii dhallinyarada ay qaldeen ay jiqayeen aad iyo aad aan idinkugu mahad celinaa guushiina iyo geesinimada iyo mataqaanaa saad uga qayb qaateen difaaca dalka waddadu waa dheer tahay Soomaaliya waxay soo martay wadooyin badan dad adinka idinku horeeyay oo mutacallimiina iyo dad dhalinyaro ah iyo culumo iyo dad shacab ah waxay u dhinteen dalkan aan ku loona dalka aad ku nooshahay haddaan loo dhima lahayn maanta Soomaaliya ma jiri lahayn adduunkan laguma arkeen dad naga horeeya u dhintay anagana ku soo dagaalamaanahay adinkana kuwa nagu xigtaa tihiin adinkana kuwa ku sii xig oo ku wareejayaatiin waxaan idinka codsanayaa cadow nin maanta khawaariijtu sida culummadu noo sheegtay ilaahayna diintiisa ku sheegay qofku ku dhintaa waa qof ahlu janno ah saaxiibadeenna badan ee ku dhintay ayagu waa ahlu janno sida culummadu ay noo sheegtay taliyaha ciidanka xoogga oo ka hadla goobta ayaa kalimaad dhiirigelin iyo mahadcelin isugu jira u jeediyey ciidamada qaybta 6aad ee ilaala qaran isagoona ciidamada halkan ku siiyey darajo ciidan oo ay ku mudaysteen u dhabar adeegida difaaca dalka dadka iyo diinta iyagoona 4 saac u taagan qabowga iyo kulaalka inay xornimo helaan bulshada Soomaaliyeed nin kasta oo idin kamida ciidanka askarta kamida waxaan dalacsiinay min hal darajo ayaan dalacsiiyay ko waxa kaloon idin ballan qaadaa dalacaada saraakiil askarta lacag laguma kala qaada jirin laakiin in dalacaad askariga sida uu kala sareeyo oo ugu lacag qaato ayaan idin ballan qaadaa marka waa adkaysateen waxaan rabaa liiskooda in haddaba la qoro inta oo aan iraado Mubaarak iyo ninka la iraado Sheekh Said Ali in liiskooda la qoro cid kale aan la iga darin inta joogta goobta maanta aan joogno inta joogta ee aan ka bixin difaac aan ka bixin ayaan intaas abaalmarintaas siinay Saadam Cabdulla Siyaad telefishin qarka Soomaaliyeed deegaanka Al Kawthar gobolka Shabeellada Dhexe